laba inanoo dhalinyara laga soo doortay deegaankan arrintana si wanaagsan bay u og yihiin inamadaas waxaanu markii aan wax kala garan weynay inama ku mashquulay in labiskooda iyo iyagu istaawadaan ayay noqdeen markii kun jeer loo bandhigay tabashada iyo cabashada bismillaahi raxmaani raxiim marka hore dhammaan halkan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi halkan waxaan salaamayaa qaranka jamhuuriyadda somalilan uu u horeeyo madaxweynaha mudane muuse bixi cabdi waxaa kaloon si gaara usii salaamayaa dhammaan hay-adaha qaranka gaar ahaan kuwa amniga khaasatan ciidamada qaranka ee qalabka sida intaa ka bacdi haddii aan u guda galo arrinkayaga maanta aanu halkan u joogno wuxuu arrinkayagani daba socdaa arrin maalin dhoweyd social mediaha iyo warbaahinta dhammaan aanay waxba idinku seegelin inaad wada dhegaysateen oo u badnaa dumar iyo carruur iyo maxas ka cabanaysay tacaddi aan xad lahayn lana soo koobi karin waa deegaanka maqaaxida inanta weeyaan waa la garanayaa waa galbeedka hargeysa taxaddigaasoo ahaa xildhibaan wakhtigiisii dhammaaday oo golo deegaan ahaa oo cabdicasiis aadan habane siisto uu arrinkaasi ku lug lahaa arrinkaasi wuxuu iskugu jiray khasaaro maal iyo tacaddi iyo dad la xidho iyo dhibaato ilaa al'aanada aanu hadlayno dad buu xidhay oo u xidhan oo ugu jira seelalka ilaa iminkana aanaan ka warqabin in maxkamadaha iyo hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda la horgeeyey waxaa intaa dheer ciidamo guryaha waad dhegaysanayseen dumarkii ka hadlaayey ee guryaha loogu galay ee dharka lagu dul jeexjeexay ee raggoodi iyo darkoodiiyo maqan guryaha qori dabadii lala dhacayey dadkaa iyo deegaamadaas waxay ciqaabta intaa le ku mutaysteen annagu ma garanayno jawaabtaa waxaanu ka doonaynaa oonu ergo uga nahay dhammaan hay-adaha amniga wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin u horeeyo jananka ciidanka biliiska dabagale waxaanu rabnaa hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka in lanoo hor keeno dhammaan saraakiisha xukumaysa ciidankaasi iyo inankaa xildhibaanka wakhtigiisu dhammaaday ee aanan garanayn ilaa wakhtigaa xaadirka ah awoodda intaa leeg halku ka haystay iyo halkii ka imanaysa waxa taalla oo ilaa iminka yaalla cagafyo barayfada oo darka hantidoodii lagu duminayo o lagu baabiinayey oon golaha deegaanka iyo dawladda hoose iyo local governmentka ka imanin oon ka imanin howlaha guud oo dad shaksiyaadii leeyihin oo lasoo kiraysta waxaanu doonaynaa ciddii wixii lagu fuliyey iyo xukunkii yidhi fuliya arrintan iyo caddaymaheedii qodobka kaa ku xiga dhammaan waxaanu leenahay annagoo tixgelinayna oo karaamadooda dhowrayna iyo sharafkooda iyo magacooda ganacsatada reer somalilan ee magac aanaan dhabaynin halkan ee rag iyo dumarba leh ee ka qayb qaatay barakicinta iyo ololaha dadkaa lagu wada deegaanka meesha degan ee saboolkaa dadkaasi waanu haynaa magacyadooda waanu ognay hebeladay yihiin waxaanu idan leenahay adduunkiinnii aad bixinayseen waxba laydinma hayo waa kuwan dadkii deegaanka lahaa ee beeralayda ahaa dadka gacanta dhexe idanka qaadatay iminka adduunkiinnii dabagala iminku raadkeedii qoyan yihiin hadhow toole arrinkiinu annagu nagu soo noqoni caaqilkii baa taagan odayaashii baa jooga waxgaradkii deegaankaa jooga haddaannu idiin sheeganaye waxba meeshaa idinma yaalla adduunkiinnii dabagala waa deegaanka maqaaxida inanta weeyaan waxaanu doonaynaa oonu halkan fariin cod dheer iyo cod dhow labadaba ku odhanaynaa maayar cabdikariin maxamed mooge
maayarkii shacbigaad 26 kun oo cod baad ku fadhidaa maayarkii suurinayay ficilada noocana inuu suuriyo oo u dabargooyo ku ballan qaaday baad ololahaagii waxaanu doonaynaa oo marti kaaga nahay maayar adiga iyo golahaagii deegaankuba sida ugu dhaqsaha badan inaad meesha u timaadaan oo indhihiina ku soo aragtaan oo aragtaan waxa ka dhacay iyo tacadiga ummadda ku dhacay iyo waxa loo geystay ummad baa guryo dhisan degan oo dawlad deegaana hore qorshaysay ayaa ragmaab cusub iyo qorshe cusub u samaysay oo la yiri gurigaagii wada martay wadadiina dad la dejinaya hore jirtay gurigiisina wada laga dhigaya waxaanu doonaynaa maayar annagoo aad ku ixtiraamayna oo magacaaga iyo sharaftaada iyo karaamadaadaba dhowran inaad arrinka yagaasi aad ka soo jawaabto oo aad noogu timaado sida ugu dhaqsaha badan oo aad aragto oo aad nala aragto oo aad aragto waxa dadkaas ka cabanayaan waxaan doonayaa oo iyadana halkan rabaa inaan ka idhaahdo ciidanka hoggaanka ciidanka ee jananka ugu sarreeyo dabagale waxaanu leenahay in badan miidiyahaanu kaala soconnaa waanu soo dhoweynaa afkaartaada iyo qorshayaasha cusub ee doonayso in hay'adda ammaanka biliiska aad ku soo kordhiso waxaad ka shaqaysaa oo aad ku ammaanan tahay sidii loo walaalayn lahaa shacabka iyo booliska loo tusi lahaa inay yihiin kuwii u adeegayay bulshada ee u shaqaynayay waxa kaa hoos kacay oo kaa hoos shaqaynaya niman aan ku shaqaynaynin boolisiga iyo siyaasadda lagu walaalaynayo shacabka iyo ciidanka ammaanka oo iyagu iskaga dhigayo waraabe iyo lax iskaga dhigaya dadka iyo booliska waxaanu doonaynaa inaad soo gaadho oo aad nala aragto oo aad nala aragtaan doonaynaa oo dadkaa laga soo jawaabo oo dadkii waxaa geystay faldambiyeedkaana aad noo horgeysa hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka oonaanu kula xisaabtanno taasaanu marti kaaga nahay oonu jananka ciidanka ka sugaynaa iyo jawaabteeda maxamed hal su'aal baan walaal weydiinaya maadaama arrintaad ka cabanaysaa tahay arrin dhow dad kastaba waxay soo saareen xildhibaano u matalaya golayaasha deegaanka dalka cidaad tabashadiina u gudbisaan maadaama oo cabashadiinu inta badan ay ku waajahan tahay golihii hore ee deegaankii waqtigiisu dhammaaday maanay jirin cid cabashadeeda inay ka qaada maanta oo codkii deegaanka ku soo baxday waxaanu u sheegaynaa su'aashaasina lay weydiiyey waanu ka jawaabaynaa waa sax waana su'aal meesha qabata shaqadan maanta halkan taallana waa run waa ti u taallay golayaashii deegaanka soo baxay ee cusbaa iyo baarlamaan labadaba laba inanoo dhalinyara laga soo doortay deegaankan arrintana si wanaagsan bay u og yihiin inamadaas waxaanu markii aan wax kala garan weynay inama ku mashquulay in labiskooda iyo iyagu istaawadaan ayay noqdeen markii kun jeer loo bandhigay tabashada iyo cabashada oo iyagu weli isku mashquulsan markay mashquulka ka soo baxaan waxaanu leenahay war wixii la idin doortay hoos u eega oo dadka iyo deegaanka iyo dadkii idin codeeyey halkaa arrinkooda hoos u eegaanu leenahay oo waa laydin sheegay oo waa laydin kala hadlay weli nin soo agmarina ma lihidin cid walbana waa idin sheegtay war waxaanu idin leenahay arrinkaa iyagana inay hoos u eegaan baanu ka sugina insha allah tacaala